السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وسلطان عبد الله محمود مامولاha macadka culumta daraasaadka ee siyaasadda Midnimo Institute for Political Science and Knowledge. insha Allah maanta waxaan rabnaa inaynu sharaxno casharadii in badan hore inoo soo socday. insha Allah casharadii ka hore waxaan ku soo dhignay waxa weeyaan casharo aad iyo aad muhiim u ah in dhammaan dhalinyarada iyo dhammaan wixii ganacsatada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan. maanta waxaan rabnaa insha Allah cashar yar oo kooban oo nuxur weyn xambaarsan. casharkaas oo ku saabsan qaabka aad u ogaan karto macaamiishaada, waxa weeyaan qaabka aad u ogaan karto cidda ay lacagta ku taagan tahay trade balance-ga, cidii markaa wax lagu leeyahay, cidii waxa weeyaan loo xadiday iyo nidaamkii sida loo adeegsan lahaa. marka saddex option baa ku tusaya insha Allah. optionka koowaad wuxuu ku tusayaa inaad intaan customer tagto aad tagto meeshan la yiraahdo create statement si aad u ogaato xaaladdu meesha ay marayso. maanta oo ay taariikhdu tahay sidaad rabto haddaad u adeegsato July oo ay maanta inoo marayso ugu yaraan 22 oo inoo ku taagan tahay sax. inta aad u baahan tahay in la eego oo aad raacinayso iyaduna aad rabto waxaa leedahay bishii 23keedii ilaa bishii 22aad 7deedii meelahaas. waa arrin mudan. waxaan tagaynaa halkan oo ah one customer, inaad one customer u baahannahay si aan hal qof u ogaano xaaladiisa iyo macaamiishiisa meesha ay marayaan. marka waxaan rabnaa insha Allah Maxamed Cabdicasiis Axmed inaynu bal fiirino halka ay wax u marayaan iyo statementigiisa insha Allah. waxa inoo soo baxaysa sidaan jeclahay waraaqdana waxa ay ku tusaysaa cidda lacagta lagu leeyahay iyo sida trade balance-ga iyo meelaha lagu ogaan karo. iyadana waa arrin muhiima. haddaan ka bedelno Maxamed oo aan ka dhigno Caasha Muuse Geelle si aan u ogaano bal macaamilkani waxa lagu leeyahay iyo waxa weeye meelaha ay wax marayaan. halkan waa ujeedaa printer markaad rabto inaad printer ugu daabacdo qofkii customer-ka ahaa wixii lagu lahaa iyo meesha ay wax marayeen. haddaad rabto inaad soo dhaweyso waad soo dhaweyn kartaa. oo waa kaas wuxuu ku sheegay data balance forward in lagu leeyahay discount loo sameeyay $3 ah, $300 iyo $295 iska bixiyay. $3 lagu sameeyay oo $2 ay ku harsan tahay discount $3 loogu sameeyay. aad ba ugu jeedaa bay la tahay. qodobkaas waa fiirin kadhaa. meel kale waxa jira show inaad tiraahdo statementiga itus meesha ay wax marayaan. tanna waad awoodaa oo ay ku soo baxaysaa iyadana waa tana oo waa taas. halkaasna waa fiirin kadhaa oo transaction-ka soo u dhacay 6 bisha 22aad 2019 bay balance-gii invoice buu wuxuu ku qaatay 3 December 7/26 wuxuu ku qaatay bariis $10 10 kiish oo ah oo halkii kiish uu yahay $30 walidaalika $300 saas uu ka helay. sidoo kale waxa loo sameeyay discount-gina waa taa soo sheegnay oo aan soo macaamilay idan $3 waa ka $2 baa lagu leeyahay. xaqiiqatan saas loo maraa oo loo fiiriyaa. qodob waa kaas. qodobka koowaadna waxaa tagi kartaa inaad customer tagto halka tagto customer centers waxa ku soo baxaysa ciddii aad lacagta ku leeyahay Axmed Cali Caasha Muuse. bal Caasha Muuse aanu fiirino dabadeedna waxa ku soo baxay transaction-kii ahaa caadiga ah. kadib magaciisa halka gelinaysa from advancement-ga iyo ciddii wixii lagu lahaa. iyadana waxa weeyaan aad ba u fahmaysaa oo ka detailskiisii iyo markii qofkii wixii uga baahan tahay iyo meelihiisii iyo wuxuu wax marayay oo ka sidoo kale qodobka saddexaad aynu ku eegin karno waxaa ka mid ah inaan tagno report markaynu tagno customer receivables aan taabano oo aanu taabano customer balance summary waxaanu ku ogaan karnaa cidda ay lacagaha ku taagan yihiin. Aamin Axmed Cali waxa ku taagan $60, Burhaan Cali Axmed waxa ku taagan $2, Burhaan Geelle Yuusuf $48, Caasha Muuse Geelle $2, sidoo kale waxa way Saalax Axmed Cali $81, Xalimo Yuusuf $116, Yaxya Turaabi $810. total guudna 2019 baad ku taagan customer balance-ga in halka ka fiiriso. sidoo kale waad awoodaa inaad tagto report-ka mar labaad intaan tagno haddana customer and financial tagno haddana aan tagno customer balance details sida ay wax u kala socdaan. waa ujeednaayo waa kana Aamin Axmed Cali invoice-keedii 7 bishii account receivable $60 baa lagu leeyahay. sidoo kale Burhaan 3 jeer buu sameeyay mar investment loo sameeyay mar payment uu lacag bixiyay mar discount aynu u daynay $100 u bixiyay iyo payment-ga oo ahayd $145 u bixiyay iyo $3 iyo $2 oo lagu leeyahay invoice. Burhaan Yuusuf Geelle walidaalika sidaas ayaa loo analyze gareeyaa. waa casharka inta ugu habooneed
sidoo kale customer finance haddaad tagto waxyaalo kaloo aad ku ogaan ka dhaa jira average days of paymentiga, collection of reportku hadda inoo soo socda insha allah, customer balancega, waxyaalo badan baan ku ogaan karnaa. marka maanta casharkeena intaasuu ku saabsan yahay. magacaygu waa Suldaan Cabdullaahi Maxamuud, maamulaha macadka culuumta daraasaadka iyo siyaasadda. waxaan idinka codsanaynaa inaad macadka subscribe garaysaan, dhammaan asxaabtaada la wadaagtaan, casharadan ka horeeyana si analyze garaysaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.